sidaan idin sheegay dowladda Fahad Yaasiin macallinka ama Ayatullah ka Fahad door maraan marnay falsafadiisana waxaan ka dareemay ama uu ii sheegay anuna hadda ku been abuurinay afar arrimood inuu xaqiijiyo kow madaxweyne Farmaajo inuu soo celiyo ama xukunka ku hayo si taas ay u dhacdana dadka xamar degan qayb iyo xukun oo ku qabto siyaasiyiintoodana la level gareeyo oo mid lagu sheego tuug mid lagu sheego shisheeye kalkaal ama shisheeye u shaqeey mid lagu sheego dib u socod mid lagu sheego nabadii nolol u diidan yahay horta in sideedaba wax alla wax siyaasiyiin oo dadka xamar ka soo jeedo wax garadka meesha laga saaro dhaqaalahoodana la baabasho laga bilaabo hormuud ilaa bajaad dabeeciyan Farmaajo xukunka oo cad inta xukunku cad yahan qof uu garka yeelay waa garmaqaad horta mana ahan runtii afsi waxaan ka qabaa sidii Maxamed Siyaad Barraba dawladdu gacantiisa ugu baabaaday wixii yar la soo dhadhabay inay gacantiisa ku baabado afsi ayaan qabaa aniga ka soo qabo waxa la yiri xaf soo xir waa diiday dad badan oo ii sheegay maxaan ku dhahaa siyaasiyiin oo Muqdisho ka soo jeeda la yiri soo xir waa diiday